timaha wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xildhibaanada halkan ku sugan la taliyayaasha agaasimayaasha kala duwan bahda ganacsatada hal abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed ururada qof walba oo halkan ku sugan waxaan ku salaamayaa marka hore salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib mudane ra'iisul wasaare waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ah u salaamo ambassadorka OIC oo asagana nagula sugan madashan maanta mudane ra'iisul wasaare iyo dhammaan bulshada halkan masab walba ay ku fadhiso waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo shirweynaha lixaad ee hoggaanka iyo hal abuurka oo maanta mudane ra'iisul wasaare aad inoo furi doonto kelmadda ugu muhiimsanna aadna dhihi doonto intaa kadib waxaan rabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee holkan joogo aan u sheego ra'iisul wasaaraha saaka 2 saac diyaar oo noo ahaa dhammaanteen waa garan kartaan ilaa iyo xilliga oo noo imaaday ilaa iyo xilligaas annagoo na sugay inaan si qurux badan oo aanan qof saaka ku talagalay inuu imaado madashan oo san ka baaqan intaas oo dhanna annagoo na sugay waxa kale oo aan rabaa inaan ka cudurdaarka ay bixiyeen tiimka qabanqaabayaasha waa ra'iisul wasaaraha iyo annagaba waa qaadanay oo ra'iisul wasaaraha nagu hogaaminayo waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed oo ay dhalinyarada ugu badan tahay oo anigaba aan ka mid ahay xukuumadda dan qaran oo ra'iisul wasaaraha hogaamiyo inta ugu badan wasiiradiisa inta aan ka warhayo oo idinkana aad ogtihiin waa dhalinyaro sababtaas keentay in maanta shaqadiisa oo dhan intuu soo kansalo oo hoolkan idinku imaado berrina oo idin xiro shirkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya marka waxaan rabnaa inaan isku dulqaadano si kastoo ay xaaladda ahaataba marxaladda maanta aan ku jirno waa ka duwan tahay marxaladii hore marka waxaan rabaa aniga oo ku hadlaya magaca qabanqaabayaasha bahda wasaaradda isgaarsiinta iyo dhammaan teemba waxaan rabaa inaan qaadano cudurdaarkaas ra'iisul wasaarahana oo naga aqbalo mudan ra'iisul wasaare shirkan lixaad oo ah shirweynaha hoggaanka iyo hal abuurka oo ay si wadajir ah u soo qabanqaabiyeen hoggaanka wasaaradda iyo waaxyaheeda kala duwan iyo agaasimahaba oo ay la kaashadeen ururka arkaan iyo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan sanadkan oo halkudhiga halka ku qoran yahay marka hore waxaan rabaa ka wasaarad ahaan in annagu lafteena waxa mas'uuliyad naga saaran tahay 3 dhinaca hal abuurka wasaaradda maxaa mas'uuliyad ka saaran waxaa wasaaradda mas'uul ka saaran inay soo dhaweyso dhiirigeliso qof kasta ama shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada oo la yimaado fikir saliim ah inaan ku dhiirigelino oo bogaadino shuruuc iyo korjoogteena aan sameyn annagoo ka duulayna halkaas wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada waxay waaxyaheeda ay ku soo kordhisay maadaama tiknoolajiyada subax walba caawa meesha aad ku ogeyd saaka ma joogto annagoo baahidaas jirta aan ogaanay ayaa wasaaraddu siyaasadda waxay qaadatay inay ku soo kordhiso waaxyaheeda wax muhiim ah oo la yiraahdo waaxda hal abuurka iyo la socodka tiknoolajiyada cusub taas oo maanta keentay in wasaaradda iyo hoggaankeedaba ay halkan madashan ku sugnaadaan oo ayna dhiirigelin u sameeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhammaan qabanqaabayaashaba waxaa sidoo kale wasaaradda ay mas'uul ka tahay kaabayaasha isgaarsiinta
oo aad ogtihiin dalka welina aan raba inaan u mahad celiyo shirkadaha private-ka halka ay isgaarsiinteena maanta ay joogto oo aan nahay dalka ugu horeeya dalalka geeska Afrika markii la fiiriyo qiimaha lagu helo iyo quality-ga sidoo kale wasaaraddu waxay curisaa ayada oo la jaan qaadayso isbedelada caalamka ka dhacaya siyaasada la jaan qaadi karo hal abuurka iyo tiknoolajiyada iyo taageerada dhammaan xarumaha hal abuurka oo aan hadda ognahay in ka badan 30 xarumood oo hal abuura inay jiraan oo aan uga mahad celinayo jaamacadaheena gudaha in jaamacad walba badankood ay leeyihiin xarumaha hal abuur oo soo saara dhalinyaro firfircoon markay ay qalin jibinayaan bugaagtooda ama barnaamijyadooda mid ka mid ah ee wax baraatig ah soo saaraan oo aan markhaati ka nahay mudane ra'iisul wasaare intaas iyo in ka badanba wasaaradda isgaarsiinta waxay yoolkeeda uu yahay inay la jaan qaado dhalinyaradana la socoto ma ahan keliya in hoggaan wanaagsan haddaa aragtaan waxaa ka dambeeya marka hore hal abuurnimo ayaa daba taagneed keliya ma ahan in wax la curiyo waxa la curinayo laakiin inay yeeshaan in la joogteeyo lana hormariyo waxaan rabaa anigoon ku dheeraanayn kelmadda ugu muhiimsanna uu ra'iisul wasaaraha noo furi doono shirweynahan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan qabanqaabeyaasha oo ay ugu horeyso wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ururka arkaan iyo Somali Youth Leadership Innovation oo iyo xafiiska arrimaha bulshada madaxweynaha oo isu taagay sanadkan in si wadajir ay u taabageliyaan iyo dhammaan hay'adaha caalamka iyo hay'adaheena shirkadaheena dalka oo ka qayb qaatay taageero farsamo dhinac walba leh iyo ra'iisul wasaaraha oo waqtigiisa noo horay maanta inuu na dhiirigeliyo waqtina nala qaato mudane ra'iisul wasaare waxaan rabaa aniga oo ku hadlaya magaca wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dhammaan qabanqaabeyaasha shirka lixaad ee shirweynaha hoggaanka iyo hal abuurka in dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeedba oo heeganka ah habeen iyo maalin shaqeeyo oo aniga aan ogahay wasaaradda aan hadda mas'uulka ka ahay dhalinyarada iyo habeen iyo maalin siday u shaqeynayaanba in dalkooda u shaqeeyaan dadkooda u shaqeeyaan inta badan ay ra'iisul wasaaraha social media waa ogtihiin inuu noqday awood meelaha aad tilmaanteen oo aad ra'iisul wasaaraha fariimaha ugu dirteen ra'iisul wasaarahana waa ka jawaabay meelaha aad sheegtaan wax ka qabashadeeda markiiba wuu aadaa waxaan rabaa marka social media inaad dhalinyarada ay u isticmaalaan si positive ah oo ay si negative u isticmaaleen haddii la rabo in wax la hagaajiyo waa la hagaajin karaa laakiin in dhalinyarada dhammaan social media aanoo kala qaadayn wasaaraddana shuruuc gaar ah ka samaysayba sida loo isticmaalayo maxaa ka mamnuuc ah maxaa u furan dhammaan ayadana inaad maanka ku haysaan dhalinyarada oo aad ka faa'iidaysataan waxaan rabaa marka inaan gabagabadii aan halkan ku ekeeyo oo aan soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo inoo furi doono shirkeenan maanta